gabadha uu qabo AJ family Okay, magaceed. magaceed ma aqaan Okay. سيدا ماشي كسيدا مركو بلابا انت اسكتبي Hey, adiga waxa sana u suubinana adiga hadalka ii soo gudbi ayada u gudbidna hadan waa ku staaga soo sheeg waa staaga waa sheega saas. Okay waxaan meeshan kala hadlaynaa. Hi, we are talking to the wife of AJ family, also known as Hassan Fare. waxaan u sheegaynaa in ninkan hooyo gabadha haysa anaa dhalay oo maama ay soo baxday. We would like to share with you that we have breaking news that a woman from the jungles of Somalia has come forward and is claiming to be the biological mother of your husband. waxayna mataqaana la helay dad marqaatiyaal oo cadaynayo in ninkan uu soo lumay asagoo yar oo daayro ingiriis ana lahay islaantan hay aheed mudgal burgaan fiican socday So we have eyewitnesses and people who have met and encountered your husband with heavy evidence claiming that he was lost during the Civil War. waxaan ognahay gabadha qabo AJ family inaad tahay gabar qalbi fiican oo wanaagsan. We know from videos of you online that you appear to be a good person. haddii aad tahay gabadha uu AJ family qabo waxaad tahay gabar wanaagsan. If you are the wife of AJ, his wife, and you are a good person, saa darteed waxaan kaa rabnaa inaad nagu gacan siiso. because of you being a great person, and we want you to assist us in helping us connecting him with his biological mother. waxa weeye arrintaasi idoo shuruud lahayn ayaan kaa rabnaa inaad nagu gacan siiso wixii qarasha ee ku baxaya DNA laba dhinac annaga baxsanayno. We want you to assist us with this DNA process, whatever financial support you need, we will cover, but we are truly begging for your assistance with this DNA process and getting them connected. qofka aan la hadlayno waa xaaska AJ family Cabdiqaadir Maxamed Jaamac. This message is directly to the wife of Abdulqadir Mohammed Jama, better known as AJ family, also known as Hassan Fare. waxaynu ku sheegaynaa waxa weeye adigu iyo caruurtaadaba dad fiican baa tihiin mana lagu caayin Soomaaliduna way ku taageersan yihiin. We want you to know that nobody in the Somali community has any derogatory terms towards you or your children. You guys are good people. This is not an attack on your family. aniga gods of social media Soomaalida ninkii ugu sareeyay Soomaalida waana ku taageersanahay adiga iyo ilmahaagan waxa idin rajaynayaa guul iyo nolol fiican. Me, I am Hassan, Dahir Alaso. I am the GOAT, the MVP, the president of TikTok. And I want you and your children to know that we are in support of you, your family, and your social media presence. halkaas ka bedel daahir halkaas ka bedel good waa ri laakiin waxa u tilma si kale ugu sheeg gabadha. No, he's the GOAT. The GOAT of social media. maxkamad markay wada hadlayaan dadka idinka mudgala dadkiina maxkamadda waa la soo adkeeyay way soo kululaatay maxkamadda mudgala markay wada hadlayo waxaan ka hadlaynaa wax oo serious matter ka hadlaynaa wallahi kaftan ma ah oo serious oo aan rabno in la turjumo la duubo maxkamadaha la geeyo dawladaha loo gudbiyo hay'adaha qosaanka loo gudbiyo gabadha loo gudbiyo program ayaan samaynaynaa. waxaan rabnaa inaan maanta halkaan kaaga sheegno gabadha uu qabo haddii aad tahay marwadii Cabdiqaadir Maxamed Jaamac inay jirto gabadha tiri hooyadii ayaan nahay gabadhaani waxay ooyeysaa maamada waxay ooyeysaa 3 sano ugu dambeysay mana seexata habeen iyo maalin way ooyeysaa xanuuno badan way qaaday. Hay anigana wax kala ku daraya si fiican sidii oo So this is to his wife. This is to AJ's wife. We want you to know that his mother has been looking for him for over 30 plus years. She's had many sleepless nights. She's been worrying since the Civil War of Somalia.
She wants to connect with her biological son. She's not asking for any financial support. All she wants to know is that he is alive and that this is him. If this is not him, she will gladly continue her search. She's not looking for any issues, any problems, just so you're aware. waxaan ugu sheegaynaa maanta ninkaaga Cabdiqaadir Maxamed Jaamac uu hadlay wuxuu dhahay waxaan ka rabaa maamada $100,000 maamadan $100,000 ma heli karto miskiin waay. Today your husband went on live and he stated that he wants $100,000 if this DNA proves that he is not the biological son. He wants $100,000. She does not have $100,000, and this is not about money. waxa way Soomaali dagaal ayaa ka dhacay dadku way qaxeen carruurtu way kalluumeen waxa dhacay dad badan oo hooyooyin badan oo ilmahoodii lagu hordiyay inoo hooyooyin badan oo ilmahoodii nolol u waayay hay'adaha shay ay kaalmeeyeen Soomaali way kala luntay saa darteed waxaan aaminsanahay 95% in Cabdiqaadir Maxamed Jaamac uu yahay wiilka ay dhashay maamadaas ee mataqaanaa soo hadashay ee media fadhida. During the 90s, there was a civil war, and a lot of families and a lot of kids were separated because of the struggles at that time. We just want to connect them. We want to help them. If we can connect with you, please reach out to Dahir Alaso or anybody on this moderate up here. Please contact anybody. We are 110% sure that he is her biological son. sidaa darteed adiga waxaa tahay qofka hawshaan fududay kara waxaan rabnaa annagoo og gabar fiican inaad tahay inaad Cabdiqaadir Maxamed Jaamac ninkaada ku tiraado arrintan condition la'aan shuruud la'aan fully inaad ku tiraado rabnaa fully inaad tiraado. We just want to do this DNA test without any contracts, without any financial, we don't want to make this based on money. We just want you to fully support him so he can do his DNA test, so he can possibly be reunited with his biological mom, and just get this whole situation under wraps. Doesn't need to be what it is right now. This is not a war. ugu dambeyn waxaan ka rabnaa oo kaleento haddii aad ninkaani mataqaanaa arrintan ka wada hadasheen oo uu ku turjumay inaad noo sheegto macluumaad naga siiso waxa uu ku dhahay oo kaaga sheegay maamadan ooyeysa ee social media ku jirto. We want you, once you're done communicating with him and maybe finding a resolution, please reach out to us. And give us your feedback on this situation. We definitely need your help. You definitely need to step in because your husband is not taking charge and does not want to participate. Waya intaasaan ku soo gabagabayna ugu dambeyn waxaa u sheegaysaa annagoo ku salaamayno oo Soomaali community-ga waxaan maanta maqalnay AJ family oo dhahaya ilmahaygaa la caayay ma jirto qof Soomaali ilmaheeda caayay ma jirto qof xaaskiisa caysay waana taageersanahay carruurta iyo xaaska oo birimigeeda ah intaa sheeg. And we just want you to know that today AJ family came on live and made a few comments about people attacking him, his kids, your family. That is not the case. Nobody has ever said any derogatory terms towards your children or your family. This is just a situation involving him and his biological mom, and that's all. Dumaashi Nicole waxaan ku rajaynaynaa gacan inaad ugu siiso kiiska waxaan kaa rajaynaynaa gacan uusa Nicole dhaha Nicole Dumaashi Nicole. In-law Nicole, we want your endless support and involvement in helping us reunite this mother with possibly AJ, her biological son. waxaan kaa ilownay inay maamada sheegtay tilmaamaha uu leeyahay wiilkeeda oo tiri fartaasa ka go'an wiilkeyga fartaasu ka go'naa anoo naaska nuujinaya ka go'ay fartaasi tiri. And the mother has also stated that
that index finger, the finger on his, I believe, left hand is missing. That's one of the signs that she said that she recognized him with. She stated that he lost that finger while she was breastfeeding him. He somehow got infection and the finger had to be amputated. Allahu Akbar. Khalifa maxkamadda waxay aqoonsatay turjumaanka caalamiga ah ee maxkamadda sadarta hal flow garay. Right now.